xukuumadda aynu ka tirsannahay ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi madaxweynuhu waxa astaan u ah ama calaamad u ah ama halka dhig u ah sareynta sharciga inta badan si dawladnimadu u soo noqoto nidaamkeedii oo u soo noqdo nidaamkii jaranjarada ee maamul ee u soo noqdo haybadii iyo hay'adkii dawladnimo waxa ah siyaasadda madaxweynaha in qof waliba qofka ka sareeya uu report gareeyo oo isbarbaryaaci iyo isdhacayaaci la joojiyo si aan u qabanno adeeg hufan oo tayo leh ummadda u gaarsiino qodobka saddexaad haddii la doonayo in la guuleysto sida aanu ka dhaxalnay taariikhaha faraha badan ee dunida soo maray dawladihii islaamiga ahaa ee waqtigii khilaafada iyo kuwii ka dambeeyay hadday ahaayeen cabaasiyiinta ama umawiyiinta ama cithmaaniyiinta ay ahaayeen hogaamiyeyaashii magaca ku lahaa sidii hogaamiyihii la odhan jiray Cumar bin Cabdilcasiis ee culimada islaamku ay u taqaano khaliifka shanaad waxa astaan u ahaa inuu isku xeero dadka aqoonta leh indheer garadka ah xalaal meeradka ah waxa dawladda tan ka go'an in qof waliba uu isku xeero dad aqoon leh way araga karti leh daacad iyo aaminaad iyo alla ka cabsi iyo akhlaaq leh dad badan ayaa iima xidhawaniyo gurigan iskaga guur gurigaagu wuu yar yahay madax baad noqotay wasiirkii maaliyadda noqotay fooq weyn halka ka karayso dadkii sidii qof ka duwan oo kale runtii gurigan anaa dhistay waxaan dhistay maxaan ku dhahay muddadii aan u shaqaynayay kambaniyada waaweyn ee caalamiga ah iyo mashaariicdii aan ka hirgelinaynay wasaaradda maaliyadda oo ay fangareynayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska gaar ahaan qaybta la yiraahdo David qodob waxay yiraahdaan waliyo markaad hadlayso hadalkaaga waa laga yaabaa in badan oo kamid inay wacan tahay laakiin suud qurux badan oo 400 ama 500 doolar ma xidnid ee style-ka ka yar xun iyadoo la moodo qofkii wasiirka noqday inuu dadka ka dhex baxo waxa laga yaabaa agaasimo waaxeedka ama agaasimaha guud ama saraakiisha kale ama shaqaalaha dhexe ama kuwa hoose qaabkii loo qiimeeyay qaabkii dharkii iyo labiskii xinaayeen in adiga lagu qiimeeyo because dadku waxay raacayaan tixraac hore iyo aragti hore adduunyadana weyn ognahay ra'iisul wasaaruhu ayaa tareenada iyo basaska raaca weyn ognahay dadka ugu sareeya ama munaasibta ugu sareysa ayaa dadkooda dhex galo oo dhex fadhiista walaayt ma xirniyo askartii hore iska bedel because askar ay isku qolatihiin la kaala uniyo askartu maynan dawladahayn maynan institution ma aamisanin ومحان كشقينا يعني مو وحسران كشقيا وحنا وزيرك وزارة هرمارينتا مالية وشقدت كودا ما أوجيهين وحنا قبنا يدت كودا وين صوبان ديجو عدو اللي وين وقتها ويوحل إنه هو حمي إنه وحقرسنا يلمودا أما نين هلاب سمايستين وحقرسنا يو أيلمودا قار كذا واحد هذان يحقين تسكبتل حقيمهن سيركم أميني كرتيد وميل حساسية وميل خطرة قار اسكولتهين سو قرأ أما الأمسنتي ميل كلا قرابة كتهين أنت بوا كديدي gurigeygii hore ayaan deganahay askartu waa askartaydii hore askartii meesha sii joogtay oo waliba inta la bedelay aan waan soo celiyay xoogaymuhu waa xoogaymii hore way dawlad baynu nahay dawladdu nidaam iyo sharci bay ku dhisan tahay is-aaminaad iyo isjacayl bay ku dhisan tahay waxyaabaha aan doonayo inaan wax ka qabanno inagoo wada jira hal qof ah waxa kamida madaxweynuhuna meesha ii keenay درجلينتا برنامج كدبو هباينتا مامولكا مالية BFM كالله يقانو إنه درجلينو سبيد أب كوسامينو إسلامر كانا هيرجلينو سيدا أو كله سعود سينو دمسترنو waxaa kamida waxyaabaha wasaaradda maaliyadda iyadoo oo la kaashanaysa hay'adaha kale ee dawladda ay khusayso inay keento qaab ama jawi lagu sameyn karo shaqo abuur
shaqo abuur lagu samayn karo taasoon doonayo aqoonteedii waan wada leenahay dad badan oo kale oo iyaguna leh oo inaga maqanini way jiraan qof kasta oo Soomaaliland u dhashay oo aqoon u leh qaabka ugu habboon ugu fudud ugu suurtagalsan dhaqaalaheena xaaladeena deegaankeena iyadoo la eegayo ee loo abuuri lahaa shaqo albaabku uu u furan yahay waana soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa waxaa jirta sarif barar waxyaabaha la doonayo ee meeshan la ii keenay waxaa ka mid ah in aan inaan samayno horta madax bannaanidii baankoo dhammaystiran inaan madaxda baanka kala shaqayno siduu baanku u noqon lahaa baanka shuruucda taalla la dhammaystiro siyaasadaha maqan la dhammaystiro waan xasuustaa oo markii ugu dambeysay guddoomiyaha iyo agaasimaha guud bay yimi waxaan ku qaybta supervisionka la yidhaa rag dhalinyaro oo aqoon leh baa jooga maxaa uga shaqaysiin weydeen bal sababta uga shaqaysiin weydeen ii sheega haddaan dadkii resourceka ahaa ee muhiimkaha aan la adeegsan oo qof walba uu ka fikro lacag yaruu meel ka qaata ama hawl yar madaxweynahana way ka go'antay in la abuuro bangiga ganacsiga iminka bankigu ama bangiga dhexe wuxuu shaqeeyaa qaabka bangiga ganacsiga ama commercial bank dararkiiba ka furan ayaa ka furan bangiga dhexe waa ka siyaasadda dejiya lacagta waa ka dejiya siyaasadda sarifka waa ka dejiya siyaasadaha iyo shuruucda ka hortaga in la sameeyo lacagyo been abuur ah bangiga dhexe howlo aad u muhiim ah ayuu dawlad kasta u qabtaa in la abuuro bangigii ganacsiga ama commercial banka sidoo kale development bank in la abuuro bangigu noqdo institution xoog badan dhaqaale leh madax bannaan dad aqoon leh xirfad leh karti leh aaminaad leh ay joogaan oo dadku halkay private sectorka bangiyada ayaa xawaaladaha lacagta ay dhiganayaan isaga qof walba dhigto oo aamino isweydii imise qof baa bangiga akoon uga furayo lacag doolar dhigtay isweydii imise qof baa akoon uga furan yahay bangiyada private-ka la leeyahay oo lacag dhigtay $100 ha ahaatee waxa laga yaabaa haddaad dib isu qiimayso inta dawladda u shaqaysa ee agaasimayaasha gaadhay akoonada agaasimanimada dartood oo akoonka uga furan yahay mooyaane qofku akoon kale ku lahayn bangiga sidee buu bangigu u noqonayaa waa su'aal u baahan inaynu ka jawaabno sidoo kale waxa aan doonaynaa oo madaxweynaha ka go'an in hanti dhowr xooggan oo madax bannaan oo leh xasaanada uu leeyahay guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah sida sharciga hanti dhowrka qaranka oo ay dhawaan la ansixiyo uu dhigayo leh in la abuuro miisaaniyad ku filan leh shaqadiisa uu si toos ah ugu qabsado waxa aan doonaynaa muddo kadib inaan gaarsiino xisaabaadka guud ee qaranka inuu noqdo xisaabaad guud oo qaran oo madax bannaan oo aanu noqon waax hoos tagta wasaaradda maaliyadda si aan u dhammaystirno barnaamijka ah check and balance inaan isu dheeli tirno qaybta fulinta ee dowladnimada waxa aan doonaynaa muddo kadib haddii alla idmo in wasaaradda maaliyadda aan ka hoos saarno cashuuraha bariga waaxda la yidhaahdo iyo kastamka oo sida xeerka la ansixiyey iyo cashuuraha bariga uu sheegayo aynu samaysano wakaaladda dakhli ururinta jamhuuriyadda Somaliland si aanay wasaaradda maaliyaddu kelideedu noqon meesha iyadu cashuurta ururisa meesha iyadu qorshaysa isla markaana meesha iyadu bixisa waxa aan doonaynaa la xisaabtan sax ah in la helo waxa aan doonaynaa inaan helno daahfurnaan dhammaystiran oo sida cadceedda u ifaysa oo cad oo qof waliba isagu uu ku qanacsan yahay qaabka cashuurta loo wareegay sax ahayd sidaa darteedna cashuurtii ku waajibtay uu iskaga bixiyo uu og yahay halkii loogu talagalay iyo meeshii ku habboonayd inay ku baxayso dowladda tan waxaa astaan u ah in si fiican oo xoog ah loola dagaalamo waxaa loo yaqaano musuqmaasuqa inta badan dalkeena waxa ka dhaca
saddex nooc oo musuqmaasuq mid waxaa la yidhaahdaa caagle ama ghost ba af ingiriisiga la yidhaahdaa waa qof dhintay ama maqan ama meel kale ka shaqeeya oo maxaan ku dhahdaa jira oo lagu leeyahay wuu shaqeeyaa mid waa bribe oo waa laaluush in qofka nooc kasta oo laaluusha iyadoo qolay leeyihiin waxaa noo qabo ama hawshaa noo fududee ama tambaan waxaan idiin sheegay imika inta xilka lay magacaabay waxaan u malaynayaa somaliland ganacsatada ku nool ee ugu badani way ii wada yimaadeen isagoo mid waliba wax khaldan wada kaa ha bedelin kaa bedel aniga halkaa ii samee kaa ii samee waleenaan been idiin sheegay aan ku uri maya waxa aan doonaynaa inaan abuurno wadaniyad xooggan dib u curasho xooggan jawi isjacayl isa siin kalsooni waxa aan doonaynaa in aan la dagaalanno waayo musuqmaasuqu waa waxyaabaha dumiya dowladnimada waxyaabaha dumiya kalsoonida dadku ay ku qabaan dowladdooda ma dhici doonto dad tiro yari inay ka hodantimaan hantida ummadda ee la ururiyo waxa aan doonaynaa haddii alla idmo oo aan doonayaa inay garbaha igu noqotaan igu garab gashaan igula shaqaysaan igula talisaan taladu waa laba marka aan khaldanahay inaad tiraan waad khaldan tahay oo waxaa iyo waxaasaad ku khaldan tahay ee aan la odhan waa wasiirkii maaliyadda oo wasaaradda horumarinta ee maaliyadda oo anma inaga daaya waxaan tusaale idin siinayaa tiyoron dhalay oo iskuul dhigata ayaa intii lay magacaabay kadib ayaa dadkii iskuulka joogay iyo macallimiintiiba si kale oo la dhaqmay waxaan weyna wasiir adeer halkan istaag alla soo dhawow fadhiiso way ii timi waxay tiri ilaa hadday ma garanaysaa macallimiintii waaweynaba awal wuxuu hore gadan nu saacaynan or maxaad halka meesha ku dhigay iminkan daaya bay dhaha adeer deeto waxay tiri waxaan ku weydiiyey madaxweynihii muuse ayaa kursi meel kuu dhigay maan fahmin bay tiri waxaad arkaysaa musuqmaasuqu ilaa xadka uu galay musuqmaasuqu maskaxdii dadku ka baahay wuxuu galay cuqaashii waxa uu galay dadkii shicibka ahaa waxa uu galay dad badan oo haldoorka dadka ahaa waxa uu galay dadkii aqoonta lahaa waxa uu galay dadkii aan aqoonta lahayn waxa taa dheer markaan salaadsi wax soo tukado ilaa intaan xaroonaya habeenkii ama 11 ama 12 guriga kuyuba lagu jira qof walba siifi buu sitaa waxa leena shaqaaleysii mid wax bartay mid aan baran na shaqaaleysii waran hay'adii shaqaalaha dawladda meehi haddii aynu iskaashano jawi shaqo abuuri karaynaa oo dadkan bilaa shaqadii ay shaqo ku helaan waxyaabaha aan doonayno inaan qabanno miisaaniyaddii hore ka duwan ee kharashku badnaa miisaaniyad ku dhisan aqoon iyo cilmi miisaaniyad ku dhisan caqli miisaaniyad ku dhisan moldariska dunidu ay adeegsato miisaaniyad ku dhisan meel waliba halka ay qaranka kaga aadantahay halbowlana u tahay miisaaniyad ku dhisan priority-ga ama muhiimadda ay kala leeyihiin horumarka dowladnimo ee markaa u yaala dowladda iyo siyaasaddeeda ayaanu samayn doonaa haddii alla idmo waxa aan doonaynaa inaan ka shaqayno dhammaan xeerarka wasaaradda maaliyaddu ay leedahay iyo hay-adaha ayse soo galaan wixii maqan la dhammaystiro sida xeerka qandaraasyada ama public procurement-ka oo ay noqdo hay-ad xooggan oo madax bannaan oo lagu ururiyo dad aqoon iyo karti u leh oo mushahar fiicanna qaata u cadaalad sameeya cid kasta oo dowladda ka doonaysa qandaraas oo ay noqoto meel nidaamsan oo saxsan waxaan doonaynaa siyaasadaha maqan ee wasaaradda maaliyaddu inaan la wada nimaadno inaan la nimaadno qorshayaasha wasaaradda maaliyadda ee maqan waxa aan doonaynaa inaan la nimaadno habkii loo qaban lahaa ee kala duwanaa ilaa inta aynu dhammaystirano hawshaa haddii alla yidhaahdo waxaa mar walba astaan inoo ah in aan soo dhoweyno qof kasta oo aqoon leh karti leh waddaniya dalkiisa iyo dadkiisa jecel inuu wax u qabto albaabku wuu u furan yahay waanaynu ka faa'iidaysanaynaa waxa aan doonayaa
inaan mar labaad mar koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad dhammaantiin aan idiin mahadnaqo waa ay sharafteen anna waxaan allaha raxmaanka ah ka baryayaa inuu idin karaameeyo idin sharfo waxa aan doonayaa in maskaxdayda iyo tiina iyo inta inaga maqan iyo inta astaan u ah wanaagga iyo aqoonta in aan idhaahdo kelidii waxba noqon maayo haddaydan wallaahi garab gelin waan fashilmayaa dalkuna wuu fashilmayaa dhalintuna way fashilmaysaa qof kasta oo ina hiigsanayay ina majiiranayayna wuu fashilmayaa waxa aan si dhow idinka codsanayaa in aad shaqo badan baa inoo taala aa idinlala qabataan taasoo ah haddii aynu diyaarinayno warbixino ku saabsan sarif bararka iyo sixir bararka qaabka ama functional revenue managementiga si qaabka structureka maxaan ku dhahdaa hadday tahay siday dunida aynu la xidhiiri lahayn hadday tahay qaabka aynu miisaaniyadda u diyaarin lahayn hadday tahay qaabka aynu ururin lahayn cashuur aanu culays ku keenin dadkeena maadaama xaaladda maanta aynu ku jirnaa ay culays badan dadka ku hayso gaar ahaan dadka mushaharka ku qaata shilinka somalilan oo maalin walba shilinkii uu kalba samaynayo korukac iyo hoosu dhac fara badan uu samaynayo waxa aan doonaynaa haddii alla yidhaahdo gacmo wada jir bay wax ku qabtaan inay noqonno one family iswada saamaxno isjeclaanno istixgelinno si wanaagsan u wada shaqayno wadaniyaddu ay sarrayso waayo waxaan doonayna waxyaabahan doonaya inaynu dhisno waxaa ka mid ah civic educationka ama inaynu baahinno dadka ka dhaadhicinno qof waliba meeshiisa inuu tabliiqi ku noqdo waxaa la yidhaha wadaniyadda waddankan cidina uma maqnaa ceelna uma qodnaa ragba waa ku raggeedii dumarba waa ku dumarkeedii in qof waliba barbarkay ka baxdaa waa bakaya qaleen waxa aan ku soo gunaanoodayaa oo astaan inoo ah wada shaqayn waxa aan ka shaqayn doonnaa albaab kasta iyo meel kasta qofkii ku habboonaa in la geeyo waayo xilligan waxaan u baahanay the right person on the right position uma baahni kan baan isku qolannahay reerkayga booskan lahaa maanta halkan buu qabtay anigaana isku reeraha lay geeyo uma baahnin hadday isku reer yihiin haddaanay ahayn hadday meelo kala joogaan waxaa astaan inoo ah calaamad inoo ah qof waliba halkuu ku habboon yahay in la geeyo iminka intii lay magacaabay maxaan ku dhahay habeenkii maba sexdaba hurdadiibu ba iga guurtay waayo maxay hor taagan mar waxaan leeyahay wallaahi haddaad fashilanto dhallinyartiina way fashilmayaan nin dambe waxba loo dhiibi maayo dadka taladoodu waa isku wada mid waxaa laga yaaba waxaan u malaynayaa 1 milyan qof in ku dhoweey inay talay siisay mid hadalah iyo mid qoraal ah 90% inay shabahdo ha degdegin ka fiirso dadka daraasad ku samee maxaan ku dhahaayay saacado badan shaqee maxaan ku dhahaayay isbedelna waa loo baahan yahay in la sameeyo maxaan ku dhahaayay dalku halkaas u maraya inaad sarif bararka wax ka qabata la doonayaa waa mooti talooyin wada noocaas oo fara badan habeenkii markaan sariirta tugmayno nin waxaan ku hor yimaa badan aad gashay yaa iminka dadkii oo dhan maxaan ku dhaha haddana saan idhahda balka waxaad ka warantaa dadka dunida bedelay waxaad ka warantaa qofka ummaddaas oo dhan madaxweyne u ah waxaad ka warantaa dadkii ama raggii iyo dumarkii soo maray adduunyada ee isbeddelka fiican sameeyey kuwa iminka aynu arkayna raadkooda kuwa imikadan aynu adduunyada ku wada nool nahay ee meel innaga halka aynu ka soo bilownay ka hoosaysa ka soo bilaabay haddaan nafta dalka loo hurin haddaan adxiya lala iman haddaan sacrifice lala iman haddaanad habeeno badan u soo jeedin si waddankaagu kor ugu kici lahaa u fiicnaan lahaa u wanaagsanaan lahaa
haddii aanad mar walba aan noqon qof ka fikira siduu lacag u heli lahaa iyo guri fiican iyo gaadhi fiican ay noqoto waayo Soomaalidu waxay ku maadantaa moogibay danta guud ku jirtaa dadku dhalinyaro u badan yihiin waa xilliga dadku ugu baahi badan yihiin qofku inuu family asaaso ka family inuu jaga helo guri helo gaadhi helo ciyaalkiisu meel fiican dhigtaan nolol wada noocaas oo inagu adduunyadii kala duwan ka duwanahay qofka horta baahidiisii horeba inuu daryeelo ayaa waqti badan ku qaadanaysa laakiin waxaan leeyahay war dadka adduunyada wax ka bedelay war dadka dayax gacmeedka iyo tareenada casriga ah samaystay war dadka nuclear-ka samaystay kama karti yarin kama aqli yarin kama liidano waynu samayn karnaa wallaahi waynu samayn karnaa oo billaahi waynu samayn karnaa haddaynu gacmaha isqabsanno is aaminno waddaniyad la nimaadno qalbigeenu saafi uu noqdo waynu qaban karnaa iyadoon cidina aqoonsanayn ma Thailand bay ka liidana iyadoon cid aqoonsanayn bay badeecadaha ugu badan dunida u dhoofisaay Taiwan resource-kii ugu badnaa adduunyada in leenahay hadday badtay iyo hadday beritay iyo hadday dahabtay iyo hadday diamantay iyo hadday shidaaltay dadkii baanu haysanaa weliba waxaa inoo dheer adduunyada waa aragnimada xoogga ee dadkeenu siday ugu filiqsan yihiin u leeyihiin haddana waa ogtihiinoo hargeysi biyo ku filan ma hesho waxaan ku biyo aad u badan ayaa dhulka dushiisana mar hoostiisana ku jira war nimanyow ama gabdhayow war wakhti badan aynu ku liminoo sidii waddanka aynu horumarin lahayn nafteena aynu horno si ay nolol fiican ubadkeenu ugu noolaadaan inagu ugu noolaano oo la mid noqono adduunyada oo la mid noqono dadkayna la midka ah waa arkaysaano waddamadii jaarkeennaha ayaa horumar qeyrul caadiya ku tallaabsadeen horumar qeyrul caadiya